أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إلهي سبحانه وتعالى هدو كرر لنقضه وحان ربنا إنان وحس كتاب سينه مسألة فقه أو آذي مهم أو أرين ما أنت جرتها مسألة ذا وحيكو سابسان تهي قاب كي لولا دقمي كرا قفك أدنتو عذرك COVID-19 أما كورونا فيروس. كوفيد معنى هذه كو وكورونا V waa virus, D-dana waa disease, 19 waxay ka socotaa sanadku soo baxay cudurka. Idan qofka u dhinto cudurka COVID-19 ama cudurka corona qaabkee lala dhaqmi karaa markuu dhinto ama cudurkaas uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhigo ajashiisa. Waxaa horta asal ah oo aan wada garanayna kulligeena in qofka muslimka ah markuu dhinto wuxuu rabo sabab ha u noqdeene in loo dhaqo qaabka shariicada ay qabto islaamka. qofku waa in la dhaqa, la kafaniya, salaatul janaazana lagu tugto, kadib gurigiisa rasmiga loo diyaariyo, qabriyada muslimiintana lagu duugo. balse qofkan cudurkan u dhintay uu ka duwan yahay dadka kale maadaama cudurku uu yahay cudur halis ah oo la iska qaadi karo. waxaa marka muhiim ah in la fahmo mas'alada arintaasi ku saabsan ama ku tacalluqda. tan koowaad waxaa wanaagsan qofka haddii ay suurtagal tahay in loo qabeeyo sida dadka kale looga qabeyn karo, balse cilad jirta awgeed hadday timaado cabsi laga baqayo viruska inuu faafo, qofka u qabeynayo meedka inuu cudurkaasi qaadi karo kana qaadi karo kan uu qabeynayo meedka ah, marka ayada cabsi baa timaaday. idan waxaan ku gaabsanaynaa mas'alada dhehayso qaacidada fiqiga ah ad-daruuratu tubiixu al-mahdhuuraat. daruuro hadday timaado waxay banaysaa waxyaalihii aanan banaaneen bay banaysaa. idan qofka haddii loo qabeyn kari waayo waxaa lagu gaabsanayaa in meel dheer laga istaago, biyo lagu rusheeyo. haddii la heli karo masaafo 1 mitir ah qofka laga fogaado, saasna loogu qabeeyo lana taxadaro ayaa wanaagsan. waayo waxaa su'aal isweydiin mudan ah, viruska muu jira qofka markuu dhinto kadib? dad baa waxay aaminsan yihiin viruska markuu qofka dhinto asagana wuu dhimanaya. mas'alada sidaa maahan. viruska wuxuu joogto ahaanayaa qofka markuu geeriyoodo cudurka u dhinto ilaa muddo 6 beri ah. idan waxaa muhiim ah in laga taxadaro viruskaas oon lana iska qaadi karo. haddii qabeyskii dhib uu ka imaanayo waa in maxaa la dhahay meel dheer la istaaga, biyina lagu qabeeya adigoon jirkiisa taawanaynin. haddii arinta ayada dhib uu ka yimaado ay cabsi timaado in cudurka la iska qaadi karo ama viruska inuu faafo, qofka dhintay ka tago oo kan kale u gudbo kan dhaqayo, marka ayada ah waxaa loo sameynayaa waa loo gabagabeynayaa qofka meedka ah oo cudurka u dhintay. qofka waxaa laga rabaa inuu xirto personal protective equipment, shay uu iskaga difaaci karo viruska suusan u qaadin oo kale. waa inuu galaaf xirtaa, mask sanka iyo afkiisa waa inuu asturtaa. hadduu ookiyaalo ka difaacay oo helana waa inuu xirtaa, waa muhiim. dhar isku daysanna waa inuu xirtaa soo hadhow cilad inuu soo gaarin. waa inuuna u gabagabeeyaa. markuu galaafka xirto waxaa la rabaa dhulka inuu ku taabto uu garaaco 1 jeer, wejiga u masaxo, kadibna taabasho kale uu taabto labada gacan, midigta kadib bidixda ilaa xusulka waa inuu u masaxa. markaasi waa arintu way ka milmaysaa. haddii gabagabeynta loo gabagabeynayo qofka meydka ah
stiil ay cilad ka timaado, cabsi ay timaado, baqdin ay timaado, marka ayada ah waxaa lagu gaabsanayaa inaanan loo qabaynin qofka, loona gabagabaynin, balse la kafaniyo laguna tugto. qofka hadduu isbitaalka ku dhinto kale, dadka caafimaadka loo xil saaraya arrinta iyada ah. Gaaliban waxaa la sameeyaa baag la gelinaya jirta si hadhow qof kale uusan u furi karin, maadaama viruska la iska qaadi karo cudurkaani. marka waxaa lagu gaabsanayaa haddii dadka caafimaadka ay diyaariyaan meedkii, maxaa la dhahay, loo xiro baag la geliyo lana asturo si loo furin oo kale la yeelo. marka dadka qaadayana waa dhar inay xirtaan, apron oo kale, mask, google-ka indhaha la gashanayo kale, inay isdifaacaan. kadib meedkii sidaa lagu qaado. waxaana sii wanaagsan qabriga intay geeyaan meesha ay kula tugtaan. haddii ayada naftirkeeda cabsi laga qabo, taqaatiirta hadday jiraan dad muslimiin ah, meesha ayay kugu tukan karaan ayagoona u duceynayo meedka, sida ayaana lagu duugayaa wey. marka mas'aladaas ayaan rabay inaan ummadda la qaybsado, ayna fahmaan, hadhowna say cilad oga imaanin, qof walba cilmigeedii uu lahaado ayaa ila wanaagsanaatay inaan la qaybsado. wixii aan khalday nafteydii shaydaan ay ka ahaatay, wixii aan saxayna tawfiiqda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ku ahaatay. subxaanaka allahuma bixamdik, nashhadu an laa ilaaha illaa ant, nastaghfiruka wa natuubu ilayk.